سبحانه وتعالى halkan anigoo ah xildhibaan nuur cismaan guuleed waxaan ka cadaynayaa caawa anu waxaan ahaa isbahaysigan ka tirsanaa waxaan ahaa musharaxa gudoomiyaha labaad baan musharax u ahaa taa anoo eegaya amba raacaya raadi xaqan lahaynoo beeshaan ka soo jeedi lahayd kursiga darteed baa keenaysay inaan arrinka anigu musharaxnimadeeda aan diyaar u ahay amba diyaar u ahaa muddo imika iyo haatanna horta waa mide siyaasaddu sida aad doonayso uun ma noqoto duruufaa yimiday aan lahaana annagu duruufaa yimiday siyaasadeed waxyaabo kale oo iyada qudhideeda ayaa iman kara tiibaa keentay iyo inta haddaan raaciyo reerkii raabtiga ahaa samaroon oo dee aniga i dhalay ayaan kolkan wada hadal dheer galnay muddo aan ka tashanay arrinkan wax isweydiinay waxaan isla garanay inaan anigu amba aan ogolaaday inaan anigu ka tanaasulo arrinkaas oo anigu tanaasulo cali xaamud jibriil anigu tanaasulo taasoo aniga iyo reerka aan ka soo jeedana iyaguna de ay ii qireen inaan kursiga leenahay inaan ay nagu taageerayaan marka u bannaanaado iyo markii kale loo baahdaba arrinkaas sidaa darteed anigu waan tanaasulay waxaan u tanaasulay xaamud jibriil iyaan u tanaasulay anigoo ah isbahaysiga ka tirsan wabilaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركز حجة وحن سلام جارة يوم هاد علم جارة عسينا يا ولالك حلبال نور عثمان جولد وأنو مدبنا سوى الشقيريني حسبية كله ما أنت نسبايس كان كودا تفسرنا هاي لبضي دوبا سيدا ملقاها له شرفت له وناق له ويقول ترى سوري إنه مشرحي قدوم يكون كلا بعض وأنا جاي يقول الصوم آديات ما تاقو ما هاد نقيا وحنكلون لها هاي كرسيجان شرقدون كرير أوضل ويكوشرين مركي أوضل مركي دولة ديجور رسالة صورتي صدق حس عاشق إلا يمكا كمين مغنان وحيقول أعطيك مغنان رأي أوضل لابد يكون يشنتي إلا أحمد ياسيش على ياله ويمني لابد يكون تطبيق تمانكي وحال لها هاي مركي هورنا رأي أوضل بكفردي أو باش أو جيه ونور كسر شيء ama ciise ayaa lahayd oo ku fadhiday markii uu dambeysay Axmed Yaasiin baa ku fadhiday maantana anigu iga talaasulay berita ka maalina ninka reer awdal markuu yimaado nuur yimaado ama walaalkii yimaado ama cid kale timaado sida uu noogu talaasulay sharafta leh ee wanaag galay milgaha leh inaan reer awdal midowno oo kolba kaayagii meesha istaaga la taageero ayaa ugu mahadnaqayaa waxaan nuurow berita ka maalkiina meel soo galana inaanu sidaa maanta milgaha iyo sharafta leh ee walaalnimada leh ee gobolnimada leh ee Soomaalilandnimada leh aad noogu tanaasushay ayaan adigana berita ka maalin lagugu dhisay doona haddii Allah awood leh inuu asmaco oo ay dadku ku wada yihiin maadaama aynu nahay dad is dhalay walaala ah isku degaan isku meel isku duruuf isku wax kasta maantana inaan kursiga awdal wada difaacno innaga iyo xildhibaanadeena kale iyo dhamaanteen iyo shacabkuba waa mid labadeennaba sharaf waajibna inagu sharafna inoo isku duubnida gobolka iyo shacbiga iyo sidaynu u wada noolaanayno dadkeena awda Ilaahay ku wada beerayna waa mid wanaagaad keentay anaguna aan la imanayno oo uliya diirkeeda isku noqonayno oo aad berita ka maalmarkaad nuuro aynu gobolka wada tagno inaynu mid nahay tan cadeynaysaa inaynu kursiga wada difaacnay cadeynaysaa inaynu isku meel nahay cadeynaysaa inaynu isdhalay cadeynaysaa inaynu dad had iyo jeer ale dib iyo dheef wada jiraan noqonayna